madaxweynaha waddanka Ruushka Putin madaxda kale ee caalamka nolosha khaaska ah ama lifestyle-ka madaxweyne Putin arrimin jiray waxa ay ku soo qabteen xilkaas qaab boqortooyanimo sida hadda ka jirta wadamada Carabta oo nidaamka waddanka Ruushka wuxuu ahaan jiray qaab boqortooyanimo ah laakiin nidaamka boqortooyada waxay isbedeshay waqtigii Soviyetka ra'iisul wasaarihii waddankaas Vladimir Lenin ayaa waxa uu xukunka ku qabsaday qaab kacdoon waxa uu meesha ka saaray nidaamkii boqortooyada waxa uu qabsaday madaxtooyada waddanka Ruushka oo lagu magacaabo Kremlin kacdoonkaas kadib waxa isbedelay nidaamka siyaasadda waddanka Ruushka waxaana meeshaas ka baxay nidaamkii boqortooyada waddanka Ruushkana wuxuu isku bedelay nidaam xisbi siyaasadeed waqtigaasna Putin waxa uu ahaa nin aad u da'yar shaqadiisana waxay ahayd shaqo jaajuusnimo ama waxa uu ka mid ahaa ciidamada sirdoonka ee Soviet ee loo yaqaano KGB laakiin Putin waxa uu fursad siyaasadeed ka helay oo soo gacan qabtay madaxweynihii waqtigaas ka arrimin jiray waddanka Ruushka oo lagu magacaabi jiray Boris Yeltsin 1997 waxa laga shaqaaleysiiyay Putin madaxtooyada waddanka Ruushka ee Kremlin wuxuuna ahaa nin aad u firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya oo soo jiitay nidaamkii waagaas ka talinaya waddanka Ruushka wuxuuna si dadban u noqday la taliyihii madaxweynaha waddanka Ruushka ee Yeltsin wuxuuna oo la imaan jiray madaxweynaha fikrado iyo talooyin cajiib ah madaxweynahana aad ayuu ugu qanci jiray talooyinka Putin shaqadan uu madaxtooyada ka helay ka hor wuxuu ahaa askari sirdoon ah oo wuxuu fahansanaa siyaasadaha isdiidan ee ka jiray caalamka madaxweyne Yeltsin oo ahaa madaxweynihii ka talin jiray waddanka Ruushka waxa uu shir jaraa'id la qaatay asxaabtiisa siyaasadda ee aad iskugu dhadhawaayeen waxaana shirkaas looga wada hadlayay qofka noqon karo ama ka soo bixi karo hogaaminta waddanka Ruushka qarniga 21aad waxaana la isku afgartay in Putin uu yahay nin aad u firfircoon oo ka soo bixi karo hogaanka waddanka Ruushka madaxweynihii waddanka Ruushka ee waqtigaasna Putin wuxuu u tababarayay ama u train-gareynayay inuu noqdo hogaamiyaha mustaqbalka ee waddanka Ruushka 1999 madaxweyne Yeltsin wuxuu u magacaabay Putin inuu noqdo ra'iisul wasaaraha waddanka Ruushka Для Бориса Николаевича свобода это было не просто слово свобода. In the heady days of 1990 and early 1991, he was the adored leader of a protest movement unknown since the Bolshevik Revolution. taasna waxay daliil u ahayd in Putin loo sii tababarayay inuu noqdo hogaamiyaha waddanka Ruushka ee mustaqbalka December 1999 madaxweyne Yeltsin wuxuu si degdeg ah go'aan u qaatay inuu xilka iska casilo wuxuuna gurigiisa ugu yeeray asxaabtiisa dhanka siyaasadda kuwooda uu aadka ugu kalsoonaa waqtigaasna waxa ku jiray Putin oo ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ruushka wuxuuna sheegay madaxweyne Yeltsin inuu iska casilayo xilka madaxtinimada ee waddankaas Putin wuxuu ugu magacaabay inuu noqdo kusimaha madaxweynaha waddanka Ruushka Я принял решение долго и мучительно над ним размышлял сегодня в последний день уходящего века madaxweyne Yeltsin waa iscasilay Putin waxa uu noqday kusimaha madaxweynaha ee waddanka Ruushka Приветствие президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. 3 bilood kadib waxa soo dhamaatay waqtiga uu Putin ahaa kusimaha madaxweynaha wuxuuna isku soo sharaxay inuu noqdo madaxweynaha waddanka Ruushka waana la doortay shacabka waddanka Ruushkana Putin waxay u aqoonsadeen inuu yahay hogaamiyaha kaliya ee ka soo bixi kara xilkaas 20 sano ayuu hayaa Putin xilka madaxtinimada ee waddankaas hadii lagu daro waqtiga uu ahaa ra'iisul wasaaraha meeshaasna waxaan uga gudbaynaa qaabka uu Putin ku soo galay siyaasadda kuna noqday madaxweynaha waddanka Ruushka haddaba sidee madaxweyne Putin noloshiisa ay uga duwan tahay nolosha madaxweynayaasha kale ee caalamka wargeys ka soo baxa waddanka Ruushka oo lagu magacaabo Newsweek ayaa waxa uu qoray nolosha khaaska ah ama lifestyle-ka madaxweynaha waddanka Ruushka ee Putin waqtiga uu hurdada ka soo kaco sida uu alamiiteeyo tooyinka uu cuno iyo qaabka uu ugu shaqeeyo xafiiska madaxtooyada ee waddankaas Putin waqti dambe ayuu hurdada ka soo kacaa subaxii oo uu ku dalahaa hurdada wuxuu ku quraacdaa subaxii markuu hurdada ka soo kaco ukun la shiilay miishaari cabitaan liin ah 15 minute kadib quraacdaas waxa uu cabaa galaas bun ah jimicsiga iyo alamiitada Putin haddaan u imaano maalin walba waa uu dabaashaa waxa uu ku dabaashaa barkad biyaheedu aad u qaboob yihiin
2 saacadood ayuuna maalin walba dabaasha markuu ka soo baxo wuxuu toos u aadaa jiimka wuxuuna sameeyaa alamiitada jirdhiska ah da'diisu waa 65 jir laakiin haddii aad fiirisid qaabka jirkiisa uma eka 65 jir ee wuxuu u eg yahay nin 20 jir oo caafimaad qaba waqtiga uu jiimka ku jiro alamiiteenayo wuxuu qaadaa biro aad u culculus oo aanan qaadi karin dadka asaga la da'aada ah ee 65 jir